waxaan ka cabanayaa maamo reer gaalkacyood ahay waxaan deganahay suuqan weyn oo bangiga dabadiisa oo gaalkacyood waxaan deganahay waxaan degay hooyadayba waxay deganay dawladii Soomaaliya oo ku gadan jiray qudaarta bangiga darbigiisa kadib hooyaday aniga hadda meeshii degan hooyaday way iska shaybowday waxaan deganahay burburkii ilaa intii ka soo horeysay ilaa waxaan deganahay inta dawladda Soomaaliya baan deganahay waxa weeyaan haddana waxa nin baa wada la idin kaga sameeynaa bangiga laga iibiyay hadda walaal miyaan anagu mudnayn shacabkii baan nahay dalka iyo dadka hooyooyin baan nahay ma mudnin miya see qof wadana loo kaga sameyn karaa caruur baan ka biilana dawladdu lacag bay naga qaataa canshuur bay naga qaataa caaga biyaha waa nagu la xisaabtantaa lacag bay na sii saartaa ayadoo canshuurtii naga qaaday ma mudnin miya arinta dani ha gaadhay madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ina adeero gacaliyow shicibkaagi baan nahay qof aan noo gadin qof 100 kun hana dhaafsan ina adeero 100 kun hana dhaafsan 100 milyan 1 milyan qof baan nahay ina adeero 100 kun hana dhaafsan ilaahay baa mahadle inteena isu keenay dambigeena Allah dhaafa arimaheena Allah noo sahlo inna duulaan kuma ahin duulaan baa lana ku yahay dawladda yadii baa nagalatay duulaan bay nagu tahay waxa weeye dawladda anagu waa ku quruxsanahay ayana waa nagu quruxsantahay cashuur baan bixinaa kiraan bixinaa qudaarta toobe ka timaada cashuur bay naga qaadaa alaabta xamar ka timaada cashuur bay iga qaadaa miiska kira iga qaadaa cashuurna way iga qaadaa tamboosaas ka timaada cashuur bay iga qaadaa tangorow hargeysa ka timaada cashuur bay iga qaadaa dawladdu aniga ay ku dhisanta ana ayadaan ku dhisanahay dawladda yada baan codsi u dirsanaynaa madaxweynuhu u sareeyo xildhibaanadu u sareeyaan wasiiradu u sareeyaan guddigu u sareeyo khilaafaadka kulli arimaha isimada Puntland u dhashay odayaasha nabadoonnada waxgaradka aqaasha kulli codsi baan dirsanaynaa waxaanu nahay dad maata abana waxaanu dhexdeganahay kawaanka iyo bacalaha iyo bangiga iyo iskaashatada baan u dhaxaynaa luuq xunaanu deganahay ilaahay baa nagu risaaqay risaaqada rabbi baa nagu risaaqay waan u soo jarmaadnaa waan ku seexanaa waan ku kalsoonaa 300 oo qoys 3,000 oo qoys waa soo shaqo tagta 3,000 oo kale waa nagu hoos noosh waxaanu ka coslanaynaa madaxweynaha iyaga Saciid Dani haduu bangigi gatay bangigu meel buu jeeday wajahad buu lahaa luuqaanu ma soo jeedin wasiirada mudugu dhaartay Allah in la xisaabtamay haddaydan arinta faragelin aydan fiirin Allah in la xisaabtamay darigiinu waa karaya darigayagina waa damiseen rabbi baa in la xisaabtamay haddaydan arintaas aydan faragelin oo u kuurgelin oo loo iimaan oo guddi aydan noo soo dirin Allah in kala xisaabtamay anaguna dhaarta qiimo waa taagan waxaan kaga faa'iideysanayaa meeshaas 30 sano aan ku cayshaynay waa deganayn waxa weeye bangigaas wadan ugu soo wajahna bawada deesalkaasay hayd dhulka ma haysano deegaanka ma haysano malyan lacag ayaa lana dhaafsan yaa lana gadan awal baa Soomaaliga la riday awal baan dad maata ahayn dad deemaysan baan ahayn dad waxaan ahayn mudug dhaxbad iyo dagaal ka dhacay intaas dad barakacay baan ahayn agooma ah dad naafa ah dad shaybaba waxaan doonaynaa oo codsi u dirsanaynaa cadaaladda waxaan u dirsanaynaa waxaanu la hadlaynaa madaxweynaha ku xigeenka inkastoo aan kaga faa'iideysanayo codkayga maanta tangorow agteeda labada reer oo wada dhashayba wax ka qaban waayay taayadana wax ka qabanayaan u malaymayo waxaan ilaahay ilaahay ka cabsada nin shaatigu xirmi waayay nin shaashiba waayay baanu shaatigu nima u xirmi waayay in shaashiba waayay baanu Allah ka cabsada marka waxaan codsi in leena askarta anaga dhalay wiilashayadii weeyaan ugu soo diraysaa ilaahay ka cabsada codsiga yadaas naga sii dirbiyo odayaasha noo soo dira bal meesha saan u daganaa arka qowlka yaga madaxweyne Saciid Dani waa ku sugaynaa